Qoys sabool ah oo ka kooban hooyo, aabe, wiil iyo gabar yar oo ay dhaleen ayaa si kadis ah wiilkoodii u xanuunsaday oo cudur xun ayaa ku dhacay. Waxaa la geeyey isbitaalka, waxaana la mariyey baaritaan caafimaad iyo shaybaar, waxaana caddaatay inuu qabo cudur xun. Aabihiis ayaa aqalka ku soo laabtay oo u sheegay hooyadiis in uu wiilkooda xaalad xun ku sugan yahay, sidaas daraaddeedna waxaa qasab ah in qalliin la mariyo. Taasna waxay u baahan tahay qarash xoog badan oo aysan tabar u hayn. Badbaadada wiilkoodana tahay mucjiso, waayo ma hayaan 10 meelood meel qura oo ay ku sii baxshaan xitaa. Gabadhii yareed ee reerka ayaa maqlaysay hadalka waalidkeed dhex maray, markaas ayay intii qolkeedii aaday ayay waxay furtay boorsadeedii yareed, waxayna ka soo bixisay $1. Doolarkii ayay la soo aaday farmashiye xaafadda ku yaalay, waxayna ugu tagtay dhakhtarkii oo fadhiya iyo nin farmashiyaha ku jira oo wada hadlaya. Waxayna sugtay intay hadalka ka dhammaysanayaan, kadib labadoodii ayaa hadalkoodii dheeraaday. Gabadhii yareed oo aad u caraysan ayaa doolarkii saartay miiska, markaas ayay ku tiri, doolarkan waxaad igu siisaa mucjiso. Dhakhtarkii ayaa yiri, yaa kugu yiri mucjiso ayaan iibinaa. Kadib sheekadii waxaa soo dhex gala ninkii dhakhtarka la joogay oo yiri, gabadhii yareed waxa aan ku weydiiyey bal inooga waran mucjisada. Gabadhii oo ku hadlaysa qalbi wanaagga carruurnimada ayaa tiri, anigu ma aqaan daawada lagu magacaabo mucjiso, laakiin waxaan maqlay aabbo oo hooyo ku dhahaya wiilkeena wuxuu u baahan yahay mucjiso si uu u caafimaado. Haddaba doolarkan ma gooyaa in lagu iibiyo daawada lagu magacaabo mucjiso? Ninkii ayaa isagoo dhoola caddaynaya wuxuu yidhi, haa gabadhaydiyey, dhab ahaan doolarkan wuxuu ka qiimo badan yahay daawada mucjiso, laakiin marka hore waa inaan arkaa walaalka. Ninkaas gabadha la hadlayana waa dhakhtar caan ah oo qalliinka maskaxda iyo dareensidaha ku takhasusay, kaas oo lagu magacaabo Dr. Carton. Isagoo u raacay gabadhii yareed gurigeeda, wuxuuna la kulmo waalidkeed, wuxuuna dib ugu laabtay dhammaan wixii baaritaan caafimaad ahay oo lagu sameeyey wiilka. Kadib wuxuu u sheegay inuu si bilaash ah ugu daaweynayo. Dhab ahaan wiilkii dhakhtarkii wuxuu u qabtay wixii howl ahayd oo dhan, lacagta oo ka qaadayna waxay ahayd doolarkii ay siisay gabadhii yareed, kaasoo ku dhejiyey derbi ka mid ah derbiyada isbitaalka. Hoostiisana waxa uu ku qoray, doolarkan wuxuu la qiimo yahay mucjisada dareenka aadmiga. Inaan u gargaarno kuwiina taagta daran waa tilmaam aanu leenahay haddaan nahay aadmi.